bismillaahi raxmaani raxiim. daawadayaal dhegaystayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan kulantii wacan oo wanaagsan ku soo dhowaada barnaamijka madasha oo aad si toddobaadla ah uga daawataan telefishinka Goobjoog. toddobaadkan waxyaabaha aanu ku soo qaadanayno waxaa ka mid ah ugu weyn doorashada. waxaan xoogga saari doonaa doorashada inagoo ka hadli doona dib u dhaca iyo caqabadaha haysta iyo sababta ilaa iyo muddo 3 bil ku dhow ay u jiitamayso. haddaba si arrimahaasi aan uga hadalno waxaanu isdul istaagi doonaa markaan ka hadlayno arrimaha doorashada iyo caqabadaheeda iyo dib u dhaceeda arrimo badan oo xagga farsamada ah, xagga amniga ah, xagga siyaasadda ah iyo xagga dhaqaalaha intaba. si aan arrimahaasi wax uga hadalno waxaan barnaamijka marti noogu ah oo maanta nagala qayb qaadanaya Farxaan Isaaq Yuusuf oo ah agaasimo ku-xigeenka Somali Public Agenda. Farxaan soo dhawo. waxaa sidoo kale barnaamijka marti noogu ah oo nagala qayb qaadan doona toddobaadkan Cabdicasiis Cabdiraxmaan Yuusuf. Cabdicasiis Cabdiraxmaan Yuusuf waxa uu waaxda xiriirka caalamiga ah u qaabilsan yahay guddiga doorashooyinka heer federaal. waxaa kaloo sidoo kale madasha ka mid ah oo maanta banalkana la fadhiya kana qayb qaadan doona caqabadaha ka hadli doona caqabadaha iyo arrimaha doorashooyinka la xiriira Maxamed Maxamuud Cadde oo ah falanqeeya xagga siyaasadda ah iyo saxafi sare. soo dhawaada dhammaantiin. ugu horreyntii waxaan rabaa inaan Cabdicasiis ku bilaabo maadaama isagu uu ka tirsan yahay guddiga doorashooyinka heer federaal. muddo 3 bil ku dhow ayaad haysataan aqalkii sare weli 6 qof ayaa ka dhiman. su-aasha ugu weyn aqalkii hoosena lama bilaabin ama golaha shacabka. su-aasha ugu weyn oo dadka ay isweydiinayaan waxay tahay maxay tahay dib u dhaca intaan la eg mise dhici kartaa in sanadka cusub ee 2022 oo idinku dhasho. bismillaahi raxmaani raxiim. alxamdulilaahi rabbil caalamiin wa bihi nastaciin calaa umri diin. awalan waan salaamayaa wariyaha TV-ga Goobjoog Cabdicasiis Gurbiye. aad baan u salaamayaa iyo saaxiibadayda igala qayb galayso barnaamijkan oo ah barnaamij aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed in la wadaago xaaladaha meesha ay marayaan si ay mataqaanaa ay uga warhayaan hadda xaalka meesha u marayo. Cabdicasiis waxaad dareemaysaa guddiga doorashooyinka heer federaal ayagoo kaashanaya guddiga siidka guddiga dowladda heer goboleed waxay soo dejiyeen dhowr jeer soo saareen dadgelinta doorashada iyo jadwalo kala duwan. caqabadaha waxaan dhihi karaa hor istaagay dabcan inay wax jiitamaan waxaa sabab u ah caqabadaha siyaasadda ee qaranka ka jiro oo dee anaguna qayb ka yihiin. waxaa kaloo jiro mataqaanaa jiitan maaliyadeed taasoo hadda xaqiiqatan u eg in mataqaanaa isku tashi dhinaca maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo ayadoo mataqaanaa xogaha inay meeshaasi wax ka furmeen u eg tahay. waxaan rabaa inaan kuu sheego aqalka sare waxaa ka hartay 6 kursi. madaxweyne Axmed Islaam wuxuu soo gabagabeeyey 4 kursi oo ku dhibanayd. hadda waxay 2 kursi ku hartay dowladda Galmudug oo ayaduna aan firayno dhawaan inaan ka helno 2 xubnood. aqalka sare waxa uu eg tahay inuu naga gabagaboobay weegii hadda dhamaaday. waxaa dhammaan iskugu yeernay dhammaan guddoomiyayaashii maamul goboleedyada siidadka iyo guddiga doorashooyinka heer federaal ayagoo arrintii howlgalka doorashada laga niqaashayay ayadana la sagartay haddana ay dhammaan ku laabtay goobahoodii. waxaa jirto maantay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed waxay joogaan magaalada Gaalkacyo. dhawaan ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal waxay tageen Baraawe. guddiga doorashooyinka heer federaal oo qaybta qoondada guddoomiyaheeda iyo mataqaanaa guddiga maaliyadda waxay joogaan magaalada Kismaayo si ay u dageliyaan inta ka dhiman aqalka sare. aniga kula hadlay weegan ayaan ka imid magaalada Dhuusamareeb si aan u dardageliyo kuraasta ka dhiman aqalka sare. waxaa hadday la isku afgartay inay doorashada la dhaqaajiyo aqalka hoose. hadday waxaan filaynaa
maamulka Somaliland iyo maamulka iyo dowladda koonfur galbeed ayaan filaynaa weegan noo bilaabanayo inay kuraasti aqalka hoose laga daafuro. hadda waxaa loo jihaystay dhinacii soo xarayntii ergada iyo hawsheedii ayaa hadda bilaabatay. aqalka sarena inuu naga xirmayo ayay wixii wiiga ka dambeeya u egtahay si aan ugu gudubno aqalka hoose. aad u mahadsan tahay Cabdicasiis. Farxaan, Cabdicasiis waxaa ka muuqata optimistic ama niyad wanaag in howlihii ay dadejinayaan oo sida cabsida hadda annaga aan dareemayno marka kor aan joogno isaga kama muuqato. caqabado wuxuu ka sheegtay oo arrimaha siyaasadda ah. ma isleedahay caqabadahaas way sii jiri karaan iyo caqabado dhaqaalaha jiro arrimo badan uu ka sheegtay. ma isleedahay sida uu u hadlayo oo niyad wanaagga ah waa dhinacyada kale ee siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo way ula socon doonaan mise macnaha way adkaan doontaa adiga ra'yigaaga? Gurbi waa mahadsan tahay iyo TV goobjoog. waa halkan rajo wanaagga uu muujinayaa markii la fiiriyo waaqica sida ma tilmaamayo doorashooyinka Upper House-ka waa kuwa fudud marka la fiiriyo yani darafyada maartay kulugta leh waayo go'aamintooda waxa iska leh madaxda dowladda goboleedka iska leh. processkaasna ma u dhibadna sidii yani u dhibadan yahay aqalka hoose. marka rajada uu muujinayo walaalkeen waxa moodaa marka la fiiriyo waaqica aan ku noolnahay iyo yani duruufaha aan ku jirno iyo markii la fiiriyo sida muujimayso waxa jirta caqabado fara badan oo practical ah oo arrintan hortaagan ay ugu weyn tahay khilaafka siyaasiga oo marka soo laabtay. waa tii waagii hore intii heshiiskii 27 May aan saxiixin khilaaf siyaasi jiray oo xooggan oo u dhaxeeyay maamul goboleedka iyo xarunta dhexe oo federaalka ah. khilaafkii hadda markii uu dhamaaday haddana weji kale ayaa la galay oo khilaaf siyaasi u dhaxeeyay madaxweyne wasaarihii. arrintaasi waa mid ugu adag ee si adkeynaysa dib u dhaca doorashooyinka. taas sidoo kale ayadan waxa garab socota yani lacagtii doorashadu ay ku bixi lahayd ayadoo oo aan lahaynin waayo doorashadu waa yani qarash badan tahay waa qaali. markii la fiiriyo bulshada caalamka ayagu waxay ku doodayaan wixii ayaga qoonda ahayd way bixiyeen laakiin waxay ku dhibantahay dowladda federaalka in lacagtooda ay bixiso ayadoo aan lacagtaas la helinna way adkaanaysaa in doorasho la sameeyo. marka khilaafka siyaasiga oo ragaadiyay oo soo laabtay waa caqabada ugu koowaad oo aan la gudbi karin xitaa haddii lacag la helo. tan lacagtana waa ayadana caqabad kale oo labaad oo farsamo ahaan marka shaqada la galo ayadana hor istaagi lahayd waayo. marka caqabaduhu badan yihiin laakiin aad u mahadsan tahay. maxamed maxamuud cadde waa laga hadlay caqabadihii waa laga hadlay sida jadwalka u degan guddiga doorashooyinka. waxaa jirta caqabadaha markaan ka hadlayno arrimo siyaasadda gaar ahaan markaan u soo laabano waxaa ogtahay magaalada beledweyne oo kale hadda waa ogtahay weli in maamulkii dhibaatada ka jira gadoo kale baraha oo kale waa ogtahay dhul ahaan looma tegi karo. arrimaha technicalka iyo caqabadaha siyaasiga ah oo isbiirsaday miyaana keeni karin in golaha shacabka uu adkaado? bismillah. waa salaamaya goobjoog iyo dhegeystayaasha dhalinyaradan ka qayb galaysa barnaamijkana waa salaamaya. marka ugu horeysa wax walba meesha ay yihiin ayaa lagu suntaa. waxa weeye 4 sano iyo barkii la soo dhaafay ayay ahayd wadankani in ay gacanta ku dhigaan oo ay maareeyaan dad khibrad iyo aqoon u leh dowladnimada. khilaafka siyaasadeed waxaa asal u ah dastuurka. shaqo kasta oo adduunka la qabto waxaa lagu tixgeliyaa qofka shaqada qabanaya khibrad. waxaa noo muuqda markaan dhinac walba fiirino dadka mansabyada ku fadhiya inaysan ahayn dad istaahila doorasho ay qabtaan iyo madax ay noqdaan iska daayay dad aan naftooda xataa maareyn karin. maaha inaan ku taxtegayo waxa weeye waxani waa wax aad u fudud weeye haddii la rabo in la qabto doorashada haddii la rabo in la qabto. sidee ku fududaa? waxay ku fududaa waxa weeye haddii jadwalkii la soo saaray iyo qaabkii la soo saaray la raaco oona cidna isku dayin inay wax isdaba mariso ama cayaarto cayaar aanan dan u ahayn shacabka Soomaaliyeed laakiin qofkaas uu dan moodo. guddiga doorashooyinka hadda waxa muuqda inta dhacday aqalka sare 6 ka dhima marka laga gudbo
kuraas fara badan waxaa jira weli la isku haysto oo aad og tahay malxiis iyo ereyada siyaasadeed ee soo baxay waa la socotaa. waxa weeye doorasho ma ahayn wixii dhacay, waxay ahayd wax u eg xulasho shakhsiyaad dad ay doonayaan in ay soo geliyaan siyaasadda. taa marka laga gudbo, guddigan farsamada shaqadiisa ma qabsan karo isaga oo aanan ka helin dhinacyadii ay ahayd inay la shaqeeyaan, in ay diyaar u yihiin inay shaqada la qabtaan. saaxadda marka aad fiiriso guddiga doorashooyinka inkasta oo la magacaabay loo dhiibay xil shaqo inay qabtaan ay tahay, faraqyada lagu dhagan yahay. dhaqaale ha noqoto, siyaasad ha noqoto, in galgal lagu yeesho ha noqoto. marka nuxurku waxa weeye aqalka sare inay soo gabagabowdo sida ugu dhaqsiyaha badan, aqalka hoosena in lagu dhaqaaqo. aniga waxaa ii muuqata doorasho la qabtay warkeeda daa'ay in dagaal qabiil laga yaabo in ay dhaliso faraha lala galay arrimahan siyaasadda loona geliyey dad aanan ahayn doorashada. laabanayna waxaan rabaa intaa su-aalaan rabaa inaan kugu darsado, adigana kolley waa qoratay. su-aasha isweydiinta mudana waxay tahay, waxaa la sheegay in doorashada faragelin siyaasi ah lagu hayo. waxaa tusaale lasoo qaatay aqalka sare qaabka ee uu ku yimid inay xulasho ahayd iyo in shakhsiyaad la xusho, oo aa og tahay xala ugu dambeysay in laga reebay Guhaad iyo Xujaale iyo raggii Jubbaland, raggii senatarada ahaa oo dhan waa laga reebay. marka su-aasha meesha oo taallaa waxay tahay, awood intee la eg ayuu inuu ilaaliyo hufnaanta doorashada isla markaana uu ka hortago in lagu takrifalo oo maamul goboleedyada ay ku takrifalaan awoodooda. Cabdicasiis Gurbiye aad baad u mahadsan tahay, waana su-aal aad muhiim u ah in bulshada xaqiiqatan loo cadeeyo. waxaan rabaa inaan ku cadeeyo roolka ay guddiga doorashooyinka heer federaal ay ku leeyihiin aqalka hoose iyo aqalka sare. aqalka sare roolka guddiga doorashada ay ku leeyihiin waxa weeye in ay xaqiijiyaan in habraac la raaco ugu yaraan madaxweynaha maamul goboleedka uu soo gudbiyay 2 xubnood. dowrka labaad ay guddiga ku leeyihiin waxa weeye in la xaqiijiyo qoondada dumarka. intaas wixii ka dheer madaxweynaha wuxuu xor u yahay in uu 2 iyo wixii ka badan uu soo xusho, laakiin anagu waxa weeye inaan xaqiijino in la raacay procedure ama habraaci ay soo saareen. waxaan rabaa inaan dib ku celiyo guddigani ayadoo guddi doorasho direct ama heer qaran ah oo xalmiyada hogaamisa oo jira guddigan la magacaabay. guddigana sidiisa waa guddi wuxuu ku yimid mataqaanaa dadban, indirect waa wax dadban. raggii soo magacaabeen waxa weeye madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dowladda federaalka ah. waxay ku shaqeynayaan waxa weeye habraaci ay ku heshiyeen. dabcan anagoo raacayna habraaci asaga ahaa guddiga doorashada heer federaal hadda wuxuu ku guuleystay 52 xildhibaan oo aqalka sare ah markii lagu daro 64 xubnood oo Axmed Madoobe xala magacaabay madaxweyne Axmed Madoobe madaxweynaha dowladda gobolka Jubbaland. waxaa ka soo baxayso 14 xildhibaan oo gabdho ah. xaqiiqatan qoondada haweenka halkaasi guddiga heer federaal cadaadis fara badan oo madaxda uu saaray iyo madaxda ay mataqaanaa culaysyo badan ka soo wajahay way xaqiijiyeen. arrintan ayada ah na mataqaanaa dee 2 ugu yaraan baa caqabada keenayso. anagoo cashirka aan ka baranay mid aqalka sare ayaa waxaan guddiga doorashooyinka heer federaal yay culays waxay mataqaanaa ayagoo habraaca raacayo yaan awoodda ay korjoogteynta iyo xaqiijinta ama hufnaanta doorashada ay leeyihiin bay insha Allah bay ku wajihi doonaan aqalka golaha shacabka. waxaa ballan qaadaysaan in hufnaanta marka laga hadlayo iyo korjoogteynta uu ka wanaagsanaa doono kan aqalka sare oo faraha la geli doontaan miya? saasaan u fahnay. roolka aqalka sare aan ku leenahay aad buu u yar yahay, laakiin aqalka hoose roolka ay ku leeyihiin guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed iyo heer federaalbo uu ka weyn yahay, uuna ka ballaaran yahay dowrka hadda aan ku leenahay. xaqiiqatan aqalka sare qodobada inoo muhiimsan waxay ahayd inaan xaqiijino qoondada haweenka iyo habraaca. taasna si fiican bay noogu dhacday. waxaan aad u amaanaynaa dowlad goboleedka Hirshabeelle oo aad furnaan doorasho ah ee ka dhacday dhammaan maamulada kalena. waa u hambalyeynaa roolka ay ka gaareen iyo xaqiijinta qoondada haweenka sida Axmed Madoobe waxa lagu sameeyay. Farxaan aan ku weydiiyo
maamul goboleedyada maxaa la gudban marka laga hadlayo doorashadan waa doorasho Soomaaliyeed ma aha doorasho dal kale u galay maamul goboleedyada xitaa haddii lacag la waayo soo ma ahayn inay fududeeyaan doorashada oo ay ka dhigaan Soomaali oon wax Soomaali ay leedahay oo ay dul qaataan mise waa in mustaqbalkii dalka rahan ahaan loo dhaha haddii aan lacagta la dhiibayn wax soconayo ma laha arrimahaas sidee u aragtaa dhaqaalaha in la isku xiro doorashada waa runta warka isku xiran yihiin wax dhan waa system wax isku xiran waaye lama kala saari karo oo lacag la'aan wax shaqeynaa ma jiraan haddana laakiin in mashruuc Soomaali leedahay oo la fududeeyo in ay timaado waxay ku xiran tahay rabitaan siyaasi oo laga helo siyaasiyiinta waa la samayn karaa maamulada isku yimaadaan ay dib u eegaan shaqadii hore haddii socodweysay dib u eegi karaan waxaa la fiirin karaa laga fikir karaa xal kale oo ka fudud oo duruufta lagu jiro maartay aqbali kara marka meesha ma ahan ma la samayn karaa waa la samayn karaa laakiin ma la rabaa su'aashaas intaqaana ma la rabaa ana suudiimo siyaasiyiintu ma rabaan marka dabeecadda siyaasadda Soomaaliya maanta ku muuqata ayaa waxay tahay in qofka siyaasiga Soomaaliga ah oo isha uu ku eega ay tahay maslaxadda aad u yar ee tiis ah oo san ba arkayn tacaamka ah yani marka public good ma fiirna qofkii tiis yarta ku jaangoyna marka waayo waxaan jirin institutions hay'ado dastuuri ah oo dadkan ka sareeya oo yani ku qasbaya in ay u dhaqmaan si waafaqsan wixii lagu heshiiyey marka ayagii ayaa waxay yihiin ayaga wax dhan u sareeya marka rabitaan siyaasi la'aantiis waxaad u moodaa ay tahana in aan wax hor u soconay isjirin lacagta oo lagu marsiyon karaa lacagta waxay noqon kartaa excuse maartay looga cararo eedda laakiin waxa ugu weyn waxay tahay markii la soo koobo rabitaan siyaasi Soomaaliya kama jiro siyaasiyiinta waayo mid kasta wuxuu rabaa ilaa inta processku uu noqonayo mid kaga jaango maslaxadiisa inuu socon hadda u jeedo in khasaaro badan ay soo gaarayso ya ma rabo yani waxa laga yaabaa inay u dhigayaan caqabado ay abuurayaan caqabado marka rabitaan siyaasi aan jirin maslaxadda shakhsiga ka weyn maslaxadda mintaqana caamka ah marka ilaa daraf saddexaad ama shacabka ruuxoodu ay abaabul sameeyaan ay kacaan oo dadka inargaradka shacabka oo maartay aan cidna la safnayn laakiin eegay shacabka dantiisa iyo yani si socoshada dowladnimada Soomaaliya ilaa ay pressure xoogan saaraan siyaasiyiinta ay codkooda muujiyaan iyo dowladaha maartay Soomaaliya taageera oo lacag badan ku bixiyo Soomaaliya haddii aysan il kale ku eegin arrinta processku waa si dheeraana caqabado badan ayaa jiri doona wala abuur doona qaarna way jiraanba waa practical kuwana kale wala abuur doona intaas ku soo koobaa waxaan horta jeclaa waxaan si walaalkay laba qodob oo muhiim ah ayaan rabaa inaan qabto markii aan la isgarinayay u yiri arrinta siyaasadda ayaa mataqaanaa waxay sababtay wax badan doorasho inay jiidanto ishaysiga ayadoo arrinta crisis-ka doorasho ee mataqaanaa ay taagan tahay madaxda sare waxaa noo qabsoontay doorashada aqalka sare Hirshabeelle oo si qurux badan oo hufnaan leh noogu soo dhacday guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga siidka soo la kaashanaya waxaa kaloo noo qabsoontay doorashada Somaliland aqalka sare xaqiiqatan si hufan oo qurux badan noogu dhacday waxaa kaloo waliba weynahay anaga shaqada aan haynay guddiga doorashooyinka heer federaal sababtoo ah maadaama doorashada aan kala shaqeynay xafiiska wasaaraha roolka iyo shaqada iyo guddiga doorashooyinka heer maamul heer caddahay dadka aan la wadaagay inay tahay maamul goboleedyada guddiyada doorashada heer maamul goboleed arrintii si fiican bay u socotaa shacabka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay kuniyad samaada inay doorashada dhacayso soconayso midda labaad oo rabo inay cadeeyo waxa weeye qodobka koowaad ee wadankan maanta muhiim u ah ama priority agenda on the table waxa weeye daadajinta doorashada ayaa qodobka koowaad cid kasto ama khilaafa jira ama jirin qodobka miiska saaran waa midkaas oo guddiga doorashooyinka ay dhinac kasta ay diyaar u yihiin inay bilaabaan taasoo sababtay hadda inay mataqaanaa isku tashi wixii aan hayno inaan ku bilowno wax waxaa jirto doorashadu waxay sababtaa xasarad ama waxay keentaa xal doorasho kastoo dhacdo ama wadankaas dhibaato weyn bay u horseedaayo waa isku dagaalayo wala kala tagaa ama waxay keentaa xal markastoo doorashada daahdo xalka ayaa sii fogaanayo sidaas daraadeed waxaa guddiga ka go'an inay doorashada inta ay daadajin karaan madaxda maamulada ay kala dhaxaysana ay mataqaanaa ay culays ku saari karaan
rajo fiican baan ka qabnaa xaqiiqatan maantaito ugu dambeysay guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed ee Somaliland iyo gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo xafiiska ra-iisul wasaaraha kulan dheer ku yeeshay markii uu soo dhamaaday shirkii u dhexeeyay maamul goboleedka siyaasadka iyo guddiga federaalka waxaa la isla afgartay in sida aan sheegay wiigan soo socdo la dhaqaajiyo doorashada Somaliland koonfur galbeedna inoo ballan qaaday in dhaqaajinayso Axmed Madoobana xalay aqalka sare soo saaray ku xijinayo galmudugna labada xubnood haray aan filaynaa inay mataqaanaa soo dhameystiraan ayaduna ay diyaar yihiin oo gaalkacayo maanta u dambeysay aan tagnay oo maasad anagoo marka ka faa'iideysanayo niyad wanaagga aan u muujiso shacabka Soomaaliyeed waxaan rabaa arinta beledweyn iyo arinta hadda ka jirto galmudug iyo gado iyo baraawo oo aan dhul ahaan loo tegi karin arrimahaasi wax caqabada ma idinku yihiin marka farsamo ahaan loo fiiriyo iyo marka siyaasi ahaan loo fiiriyo sida aan ku sheegay guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed waxay tageen magaalada Gaalkacyo shalay maanta waxay tababar loo soo xiray ee goobjoog u ahayeen ciidamadii amniga sugi lahaa ee doorashada goobaha doorashada waxaan ku rajaynahay inay halkaasi doorasho ka dhici karto waxaa kaloo jirto beledweyne gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer federaal abukaate Muriid Mataan guddi uu hogaaminayo oo la socda guddiga doorashooyinka gudoomiyaha guddiga doorashooyinka diini ayaa tagay beledweyne ayagoo noo soo xaqiijiyay laftooda in halkaasi doorasho ka dhici karto dhammaan goobahana waan soo booqanay garbahareyna inay tiimka gaaraan dardargelinta doorashada weeye iyo inaan xaqiijino meelihii doorasho ka dhacayeen marka rajo fiican oo wanaagsan ayaa muuqata in halkaasi doorasho ka dhici karto shacabka Soomaaliyeedna dhammaantood waxay ku hanwen yihiin una ooman yihiin inay doorasho dhacdo si wadanka uu wada jihaad sax u qaado maasanta mudane maxamuud cadde waxaa muuqata in doorashada ay ka go'an tahay xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiga ay go'aan ku gaareen inay doorashada dhaqaajiyaan waxay leeyihiin annaga wixii hore yaa naloo qaban hadda meelihii aan tagnay kulli waa noo cabiran yihiin waxaan rabnaa inaan doorashada qabanno hore aan u galno ma isleedaha marka mar haddii laga gudbay khilaafkii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isagoo jiro doorashada la qabtay sida uu noo sheegay Cabdicasiis ma dhici kartaa ayadoo khilaafyadan kale aan sheegnay ayadoo jiro in doorashada ay hore u socoto la qabto golaha shacabka oo sidaas ay ku dhamaato soo ma dhici kartaa ayadoo xagga khilaafkii siyaasigana uu jiro in la wado doorashada ay dhaqaaqdo guddiga doorashooyinka horta inay fahamtaan ruuxa shaqadooda waa farsamo ayaga maaha dadka wax dooranaya ayagana maaha dadka magacaabaya dadka la dooranayo dadka ku dhigan doorashada inay hore u dhaqaaqdo waxa weeye madaxda gobolada haddii ay doorasho hufan dhacdo oo ay soo baxaan siyaasiyiin aynana gacan saar la lahayn faynuustooda daciifaysa ma rabaan marka midda kale iyo diilada uu muujinayo ninkan dhalinyarada ah way wanaagsan tahay ra-iisul wasaaraha sidoo kale iyo diiladu muujinayo way wanaagsan tahay xaqiiqada dhulka jirta way ka duwan tahay qabaa'ilkii oo dhan baa hub isu guranaya galmudug waa aragtaa waxa ka dhacaya waa aragtaa waxa ka dhacaya baraawo laftirkeeda golihii deegaanka la isku haystaa lafta gareen sheegaya inuu doorasho qabanayo doorashadii horena siduu u qabtay waa ognahay wuxuu soo wadana dad badan baa hadda cabasho ka muujinaya waxa weeye waxaani haddii la rabo inay si wanaagsan u dhacaan marka ugu horeysa waa inay qof walba ka go'an tahay waajibaadka saaran inuu guto yay tahay inay doortaan xildhibaanada aqalka hoose waa qabaa'ilka yay tahay inay soo xushaan ergooyinkooda waa qabaa'ilka galgalka uu ku yeelan karo ninka madaxweyne goboleedka ah muxuu yahay waa waxba intaa ma fahamsana marka sababtaasaa keenaysa inuu dagaal dhacayo sababtaas baa keenaysa in kuraasta lagu jiro midda kale oo aan rabaa inaan dadweynaha Soomaaliyeed u sheego waxa weeye dhaqan xumo hore loo bartaa lagu celcelinaya anaa xildhibaanka qoranaya anaa keenaya waa been iyo fataadhug qabiil kursigiisa la dhici kara male aqalka sare kuwa hadda soo baxay la marsiiyey markeeda markii la gaaro dacwa laga soo gudbinaya dastuurka waxaa ku qoran qofka xildhibaanka ah
ee xasaanada helaya marka hore inuuna ahayn nin eed qaba nin kursiga soo boobay lagula xisaabtami jirin awal ninka kursiga soo boobay Soomaalida cusub waa ka duwan tahay Soomaalidii 2016 2021 wixii laga bartay dawladdii ugu dambeysay wixii laga bartay naxariis ma jirto qabyaaladda si xun baa loo isticmaalay qabiilo waaweyn baa caraysan waxay ku socdaan dulqaadkiina waa laga badbadiyay raggii dadka ugu damiinsanaa ayaa meelaha taagtaagan oo iska dhigay caaqiliin waad aragtaa hadda waxa socda siiba galmudug hadduu dagaal ka dhaco mukulata ayna doorasho ka dhacayso ma dhacayso waxaa la rabaa shaqada loo igmada ah labada aqal ee sare inuu soo gudbiyo isla markaasna qabaa'ilka kale uu xoreeyay inay orgooyinkooda soo gudbisadaan doorashana ay ka qayb galaan dadka diidaya marka nidaamkan diidaya waxa weeye saan wax ma u jiitamayaan waxa weeye ra'iisul wasaaraha uu sheegay dawladda way ka go'an tahay in ay doorashadan qabato oo ay ka mid yihiin guddigan doorashooyinka laakiin dadka hortaagan anaga waa u jeednaa shakhsi baan ugu jeednaa dhaqankoodan u jeednaa aqliyadoodan fahmaynaa waxa weeye ma soconayso dagaal qabiil hadduu markaan dhacana waxa weeye mas'uuliyaddeeda waxaa qaadaya dadka maleegaya waan qabaa aniga doorashadu inay xal noqon karto laakiin qaabkii xalka ku noqon lahayd ma muuqdo waa mahadsan tahay farxaan waxaan rabaa inaan dhanka hufnaanta inaan u gudubno iyo doorashada dhicibteeda aqalka sare waxay banalku isku raaceen inuu ahaa xulasho ku yimid oo aanu hufnaan iyo shaqo ku lahayn guddigana wuxuu sheegay kaalinta uu ku lahaa inay un ahayd kaalin aad u yar oo hadda laguma eedeyn karo waxaan rabaa marka aqalkii hoose oo ay beelaha sidee haddana xulasho looga badbaadi karaa oo beel kasta iyo tartan hufan oo aqalka hoose uga dhici karaa waad mahadsantahay cabdicasiis gurbiye arrinta hufnaanta ruuxeeda waxaa dhaawacaya doorashadu inay tahay mid dadbanaanshaha doorashada ayaa waxay tahaba mid integritigii doorashadu ay lahaa lahayd ama laga fili lahayd dhaawacaysa maadaama siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid transition ku jirta markasta doorashadu ay tahay mid indirect ah waxaa ka dhigaya dastuur iyo qaanuun doorasho lagu shaqeynayo ma lahan heshiis siyaasiyiintu gaareen ayaa lagu shaqeynaa marka way jiri doontaa dhaawac xoogan oo ku yimaada integrity doorashada laakiin waxaan is leeyahay hadda in laga hadlo oo kaliya sidee loo yareyn karaa oo wax ugu macquulsan ay u dhici kartaa yani dhaawac ugu yar u soo gaari lahay faragelinaa jirta siyaasi ah maamulada mantaqaana ayaa gacanta ku haysta gudiyada maamul goboleedka madaxweynayaasha madax banaana siyaasiyiinta xildhibaanada kuwa raba inay xildhibaan noqdaan dabcan galaangal iyo saaxiibtinimo way ka raadinayaan madaxweynaha meesha jooga waayo isaga ayaa wuxuu noqon doonaa cid ugu weyn ee saameynta ku leh dadka ergada ee la soo xulayo dadka ay noqonayaan marka saameynta way jiraysaa laakiin waxaan isleeyahay in sidee loo yareeyaa saameyntaas ay u noqoto doorashadu bil mid aqbalaad ka hesha in badan oo cabashada iyo buuqa iyo ishaysadka si loo yaray lahay sidee looga hadlaa ka doodno mahadsan tahay cabdi ciis waxaan rabaa in dhankan doorashada weli anagoo golaha shacabka markaan usii daadegayna maamul goboleedyada inta badan waxay sheegaan in lacag lagu siiyo doorashada iyo qabashadeeda gaar ahaan hadda golaha shacabka haddii qof dadka murashaxiinta ah qaarkood waxaan ognahay ayagaa ergada qorta ayagaa ergada qaata oo meesha geeyo biila ayagaa wixii dhan og marka ninkan maamul goboleedka ah maxaa lagu siinayaa ii sheeg lacagta lagu siinayaa taas waa mid tan labaad sidee ergey lasoo qortay ee nin uu soo qortay ay ugu cadaalad fali karaan kursi laga yaabo inay u tartamayaan dad badan arrintaas ka war horta mid baan ku xaqiijinayaa lacag doorasho maamul goboleed lagu siinaya ma jirto taasaan inaan ku xaqiijiyo lacagta la sheegay waxa weeye lacagta doorashada loo qaban lahaa oo xaqiiqatan ku dhacayso second treasury account oo Central Bank of Somalia taasoo dhammaan ay qayb ka yihiin gudiyada habraaci ku xusan ay soo saareen madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda heer federaal ugu dambeyntii waa gaaray qoondaa jirto Soomaa waxay ka mid ahay waxyaalihii gudiga doorashooyinka seat
madaxdooda ee u timid anagana aan ka shirnay sidii waana wax guddiga doorashooyinka uu maamulayo asagoo wax kasta iyo systemkiisa raacayo dowladda maamul goboleedyada waa laf dhabartii lagu mataqaanaa ubucda u ahayd waxaan rabaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaanteen aan rabaa inaan xaqiijiyo waxa weeye Soomaaliya meel fog bay ka timid oo doorashadii arta marka laga soo bilaabo mar uu oday aan ka gaariyay xildhibaanka ay joogtay waxa u dambeysay tii konton iyo kowga ahayd dadka dooran ee xildhibaanada dooranayeen ayadoo caqabado badan jirtay laakiin yara dhaantay tii hore iyo hal goob hadda waxaa loo gudbay 101 iyo laba goobood marka marbo waan ku faysaa laakiin meesha loo socdo waxa weeye doorasho qof iyo cod ah oo hufan guddiga doorashooyinka heer federaal tusaale inaan ku soo qaato kursigii oday ay mataqaanaa waxaa dooranayso 5 qof oo dhaligeeda ayaa qabiilkii kursiga lahaa odaygii iyo laba oday oo kale arrimaha dadka bulshada rayidka oo laba qof midna uu yahay qof dumara ayaa waxay soo xuliyaan 101gii ayadoo la raacayo su'aal aad baan u faraxsanahay qabiil lama dhici karo waa sax ayadoo qabiilka asaga ahaa nooc wax u qaybsado ya la raacayo 101gan waxa laga yaabaa qabiil X inay ka kooban yihiin 5 qabiil marka 25 iyo midkooda oo odayga inuu diraan baa laga yaabaa sidaas ay ku imaanaysaa anagu marka roolka aan leenahay waxa weeye inaan xaqiijino habraaci lagu heshiiyey anagoo raacayno habraaci ugu dambeeyay madaxda dowladda federaalka dowladda maamul goboleedyada iyo xafiiska wasaaraha saaran inaan ku kor joogteen guddiga siid in habraacaas raaco marka waxa ii muuqato hufnaantii hore inay ka wanaagsanaan doonto laga yaabaa inay caqabado ka soo laabtaan oo de waxa aan ka shaqeynaa waxay tahay doorashada dadban meel wax kasta oo dadban wax kale oo dadban ka dhex filo laakiin rajo wanaag baan anagu qabnaa inay hawsha si fiican ugu dhacdo tii aqalka sare waxa tiri wax hufan ma ahayn waxa ka muuqatay inay si qurux badan sababtoo ah cidna noog lama dilin dhibaatana cidna ka soo gaartay ma jirin doorasho kastana ayadoo la faraxsan yahay laga soo dareeray waad mahadsantiin fanaanta aan ka hadlayo waxa weeyaan in laga reebo dadkii tartanka xaq u lahaa in laga reebo wax ka weyn way jirtaba ustaad maxamed waxaan rabaa inaad ka hadasho oo aad dadka hadda mar haddii farsamada markaan ka hadlayo ilaa intee la eg ay maamul goboleedyada u diyaarsan yihiin farsamo ahaan inay qaabilaan ilaa iyo 26,000 dad la mid ah oo doorashadan oo qayb ka noqon doona marka runta laga hadlo maamul goboleedyada doorashada waxay u arkaan fursad ay wax ku heli karaan dad ay rabaan ku soo saaran karaan xirfad aqoon iyo caqli midna ma jiro taana ku xaqiijinahay waxa ku hartay nidaamkan doorashada ah kursi walba oo aqalka hoose ka mid ah waa suntan yahay qabiil baa iska leh qabiilkaas dadka ergada ay ka soo baxa ayaa waxay dooran doonaan qofka ay kursigaas u rabaan meeshan weeye meesha shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan qabaa'ilku inay fahmaan haddii aad soo xulan weydo hal doorka reerkaaga haddaa soo xusho oo la hor istaago laga barbar abuuro mid aanan ku matalayn waa inay ka cawdaan kana qayliyaan kana dagaalamaan siyaasadda Soomaaliya ma noqon doonto sidii hore u ahaan jirtay iyo doqonnimada nagu gudban waxa weeye xildhibaanka haddii la doorto xataa waxaa jira nidaam lagu xisaabtami karo inuu ninkani xoolo booliyo wato shakhsi qabiilkiisa ku haysta dadkii baa ku haysta cid allaaliyo cidii kursiga ku qabsata haddii dacwo soo gudbisay nin dacwo 4 gees looga haysto kursi ma fariisanayo cidna matalayo taas ka gudub waxa ku haray kharashka arkaysid ee guddiga doorashooyinka ay maamulayaan waxa weeye waxa ay fududeynayaan ergooyinkan soo in la xareeyo lama rabo soo in la tababaro lama rabo soo in la masruufo lama rabo inta hawsha socoto kharashka lagu sheegay waa sidaa weeye ninka
xildhibaanka noqonaya asagay jirtaa sida uu u xodxodan lahaa ama codka uga qaadan lahaa ragga tolkiisa meesha yimaada anaga marka waxaan rabnaa odayaasha qabiilada inay fahmaan marka ay mas'uuliyadda ayaga timaado dawlad goboleedka shaqo kuma laha adiga qabiilka ah iyo jufadaada jifooyinkaaga ayay arintan idin qosaysaa ma hal door wanaagsan nin wanaagsan ee Soomaalida dhibaatada ay ku jirta ka bixin kare la yimaaday mas'ala imaan waay hadii la imaan waayeen sababta ayaga laga rabaa ma kursigii baa laga boobay sidee wax u dhaceen ayaga ma taqaanaa nidaam waxaa jira process kaas dacwo la furi karaa tan kale oo ah madaxda goboladooda ay maamulaan dadkan qabaa'ilka goboladooda weeyay ayaga dirsanaya xildhibaanada aqalka hoose galgal laguma yeelan karo dacwooyin fara badan oo hadda waxa jira aqalkii sare qabaa'il lahaa kursi aqalka sare ayaa kursigooda inta laga xooga ayaa qof kale loo magacaabay ma u malaynaysaa dacwadaas inay aamusan tahay waqtigeeda imaanaysaa aad u maasan tahay waxaan rabaa Cabdicasiis in arinta waxaan u soo laabanaynaa doorashada iyo jadwalkeeda marar badan oo dib u dhacay oo ay kamid ahayd bishan October 10keeda waxay ahayd in madaxweyne dalka uu yeesho waana la soo dhaafay mar hore marka hadda waqti ma u qaban kartaa shacabka Soomaaliyeed oo aaladaha oo ku soo gabagabeyn karnaa doorashada waqtigaas su'aal aad muhiim u ah weeye xoogahana tricky ah waxa weeye marxaladaha wadanka ka jiro waxaan anaga maamulno horta ma ahan doorashada hadba waxay la jaan qaadaysaa marxaladda meesha wax marayaan laakiin shacabka Soomaaliyeed waxaan u xaqiijinayaa in aan ku rajo weynahay jadwalka aan soo saari doono dhawaan inaan hirgelin doono sababtoo ah caqabado badan oo filaynay dhammaan inay hadda soo yaraadeen ayaa u egtahay oo ah in doorashada wiigaanbo la bilaabo taas waa midaas midda labaad oo odayaasha walaalkii ah waxaan rabaa inaan hortaan ku kordhiyo aan laftiga aan taan xoojiyo horta doorashada qabiilka kursiga asaga askale odayaashaasna qabiil kursigiisa cid kale ay qaadanayso ma lahan awareness meesha waxaa tagi doono tusaale ahaan haddii lagu qaadayo doorashada baraawe waxaa tagahaya guddiga siidka oo doorashada siidka maamulaya iyo guddiga fiidka oo kor joogteynaya waxaa la soconayo xubno guddiga xalinta khilaafaadka ka socda kursi kastaba waqti haddii khilaafaad ka soo laabtaan laga gudbin karaa la siinaya oo ku xusan habraacyada iyo mataqaanaa qorshaha jadwalka taasoo ah dhaliilaha aad sheegaysid inay aan u banaynay space ay cabashada lagu gudbin karo laguna fayl garayn karo kadibna wadadii saxda ah loo raaci karo waa sax odayaasha waxaan kaloo siinay oo ogolaatay ku dhex jiro in odayaashaas ayada loo sameeyo awareness la dhiiri imtixaan la wacyi galiyo kursiga inay leeyihiin sida soo ceyso doorashada inay guddiga siidka ee helmaam goboled ayagoo kaashanay guddiga fiidka heer federaal laga wacyi galiyo waxa laga rabo odaygaas iyo waxa imtixaana laga doonaya yihiin marka waxaan ku rajo weynahay in ay mataqaanaa hawshu sidii hore dhaami doonto wiigaana jadwal aan fashil bidoonin usoo bixi doono maadaama ay madaxdii meel uga jeesantahay hal mar aan kusoo noqdo waxa weeye odayaasha dhaqanka haddii aynan xuquuqdooda ogeyn iyo haddii aynan ogeyn in baarlamaanka dadka isugu imaanaya ay yihiin dadka matali doona qaranka Soomaaliyeed hadday dad wax gal ah soo dirsan waayaan hadalkaygaas hoosta ka xariiq odaygii soo dira nin aanan istaahilin codkiisu iska qasaay waad farxan isla su'aasha oo Maxamed Maxamuud Cadde arintan uu ka hadlay arab inaan su'aal ka weydiiyo oo ah xaqiiq jirta oo number ahaan baarlamaankii 10aad wuxuu ahaa baarlamaan aad iyo aad u liito oo xagga marka laga hadlayo CV ahaan iyo xagga shaqada xitaa ay qabteen oo dhowr iyo 20 sharci ay gudbiyeen حتى شرعية سماها هن شرعية capacity له وأنا أي دحدو إسقابسة قدوميه ولا عيري معناها لأن عيدا كاستمر كلاجا فيريو برلمان وحوها برلمان أدوليته
baarlamaanka 11aad ee hadda soo baxaya baarlamaan noocee ah rabtaa nooca dadka ka soo bixi doona doorashada lower house ama aqalka hoose waxay ku xirnaa doontaa nooca siyaasadda markaas ka jirta meesha siyaasadda ka jirta maanta markaad fiirisid Soomaaliya nooca ay tahay waxay sawir fiican ka siinaysaa mustaqbalka xildhibaanada aan yeelanayno haddana waxaad u moodaa Soomaalida siyaasiyiinteedu inay maartay xoog saarayaan continuity in hadda wax jira ay sii socdaan oo leeyahay siyaasi cusub yana soo saarin oo inaga isfahmayna oo siyaasiyiintii joogtay inay sii socdaan waxay u badan tahay wajiyada ku soo laaban doona inay badnaan doonaan marka loo fiiriyo kuwa cusub xildhibaanaduna shaqeeyaan wax qabtaan sharciyo effective ah oo quality la soo saaraan waxay ku xiran tahay nooca gudoomiyaha baarlamaanka iyo sida baarlamaanku uu madax bannaan yahay executive-ka laakiin iyo madaxweynaha markaas joogaahay sida uu rabo inuu legacy ka tago madaxweyne ku mashquulsan inuu awood haysto miyaa mise madaxweyne raba in baahiyaha waddanka jira looga sameeyo shuruuc marka arintu xitaa nooca yimaada ka sokow nooc yimaadaba waxay ku xiran tahay u laabanaysaa dad kale oo hoggaanka baarlamaanka iyo labada executive-ka iyo fulinta iyo sharci samaynta inay kala madax bannaan yihiin aysan noqon kuwo isku laban oo maartay markaas taas ugu muhiimsan nooca xildhibaanka imaanayaahi xildhibaano dabcan ma ahan dad technocrat ah oo farsamo yaqaan ah oo sharciyada loo sameeyo yaqaan laakiin dad farsamo yaqaan ah ayaa ka shaqeeya baarlamaanada marka sameynayaan sharciyana process ay maraan marka tasliim malahan laakiin waxa ka horeysa cidda hoggaanka qabanaysa baarlamaanka siyaa madaxweynaha xilligaas jooga madaxweynaha fishinkiisa iyo kala madax banaanshaha hay'adahan yani separation powerska saddexdii hay'adood inay kala madax bannaan yihiin oo iyo gudoomiye asna visionary ah shaqada baarlamaanka yaqaana oo aan ahayn kaliya shaqadu kursi kaliya ahayn laakiin dad hoggaanka muhiim leadership-ka ugu muhiimsan yani waddanka taasaan dhihi lahay maxamed maxamuud cadde waxaan rabaa inaan ku weydiiyo meel ka xun oo la gaari lahaa ma jirto dowladdii 4 sano ee barka la soo dhaafay waddankan ka shaqeynaysa waxa ay qabatay meel ka xun oo la gaari doona ma jirto waxaan rabaa inaan ku weydiiyo madaxweynaha hadda xilligiisu dhammaaday ee farmaajo 2 sano ku darsaday qoryaa loo qaatay wuu tanaasulay hadda wuxuu ku sii dhow yahay 1 sano oo buuq la'aan ah haddii waana dhici kartaa in doorashada ay sii socoto sanadka labaad uu galo hadda wax lagu eedeynayo ma laha asaga Soomaha qaybka ma aha doorashada haddii 2 sano la gaaro iyo haddii ka badan la gaaro asagoo madaxweynaha wali villa Soomaaliya fadhiya wax eedo kuma laha Soomaha ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta weeye ninka waajibaadkan loo igmaday inuu meel mariyo ay tahay farmaajo wixii xikmad iyo caqli iyo aqoon uu lahaa 4 sano ee barkii la soo dhaafay ayaa la soo arkay hadda ninka aan rabno inaan ogaano in uu meel marinayo ballankii uu qaaday qayb ka midna meel mariyay qaybtii dhimanaydna haddeertan ay u darban yihiin aan isha ku hayno waa ra'iisul wasaaraha waxaa ku haray darsi ha ku qaataan madaxda gobolada darsi ha ku qaataan siyaasiyiinta mustaqbalka soo bixi doona anaa qoranaya xildhibaanada aniga ciddaan raba keensanaya meeshay ku dambeysay iska dhaafee dacwooyin heer caalami ah iyo heer waddankaana ayaa imaan doona anigu waxaan bogaadinayaa in ugu yaraan aan ilaa ay haddeertaan dhiig badan daadan laakiin dhaqdhaqaaqa ka socda galmudug waxa ka socda baraawe waxaas oo dhan si dhaqsaa waa in lagu soo gebagabeeyaa qabaa'ilka waa in loo madax banneeyaan inay keensadaan dad isla markaana hawsha lagu dhaqaaqa okay su'aasheeda kama jawaabin laakiin haddii hadda doorashada isjiitankeeda oo 2 sano gaaro oo la sii socdo farmaajo aad kuma laha Soomaha aabaha iyo hooyada mashaakilka Soomaaliya ka taagan farmaajo waay ilaa iyo intuu eelka galana ka harimayso waxaan rabaa Cabdiciise inaan ku soo laabto waxaad aad iyo aad ugu nuuxnuuxsatay inaad xaqiijiseen aqalka sare kootadii laga rabay aqalka hoose sidee ku xaqiiji kartaan oo waliba aan kugu darayo beelaha markaan waxay rabaan inay haweenka ay dagaal la galaan horta waxa kasta oo aan ku shaqeynayna waa habraacyadii 27 May
ee madaxda maamul goboleedyada iyo wasaaraha ay meel mariyeen weeye ayadoo lagu kabayo heshiisyadii ka soo bilowday 17 Sebtembar qoondada xaqiijinteeda waxay ka bilaabanaysaa 5 qof oo ergada mid baa dumar ah oo qasabeyta 101gaas 31 ayaan waxaan ka rabnaa inay noqdaan dumar 20 waxaan doonaynaa inay noqdaan dhalinyaro waxyaalaha xaqiijinayna ka mid tahay kontonkaasna hadii rabaan ku jiri karaan ama ka maqnaan karaan laakiin waxaa muhiim noo ah 31 inay noqotaan 101gaas inay noqdaan dumar 20 ay noqdaan dhalinyaro cadadkaas intaas leeg oo 101 iyo 5taas qof oo ergada ah oo delegateska la soo xulay oo nabadoonkii ku dhex jiro kursiga ay maanta ay leeyihiin qofka ku fadhiyo intaas oo qof haddii qayb mataqaan ay ka halowdo dhammaantood kama wada halaabi karto marka dabcan bulshadaas ayaa loo baahan yahay inay ninka kursiga ku fadhiya xildhibaankooda ay kula xisaabtamaan 4 sano oo uu meesha joogay muxuu bulshada ku soo kordhiyay hadduuna waxba ku soo kordhinin ay go'aan rasmi ah ka qaataan haddii uu wax ku soo kordhiyay bulshadii oo arrimihii waxbarashada biyaha dib u heshiisiintii wax weyn ka qabtay dabcan bulshadaas la soo xulay oo dadkaas la soo xulay oo wakiilka ah bulshada kursiga ay dadkaas kale bay ku xiran tahay hadda roolkii qaataan anagu siyaasaddu kuma lihin madaxweynaha fiican iyo xun iyo wasaaraha fiican midna mataqaana nooma taalo laakiin waxaa noo taalo mandatekan aan haysano oo doorashada ah in aan ka shaqeyno sidii loo daadajin lahaa cidda nagala shaqeynayso wasaaraha kow ka yahay madaxda maamul goboleedyada iyo gudoomiyaasha siidka guddiga siidka ee heer maamul goboleed in aan ka wada shaqeyno waxaan ka rabaa Farxaan bulshada rayidka waad qayb ka tihiin kaalin intee la eg ay ka qaadan karaan wacyigelin iyo daadajinta iyo in loo sheego dadka ay ka qayb qaataan doorashadan ayadoo og tahay ergadii iyo dhibaatooyinkii loo geystay 2017 wixii ka dambeeyay sidee wacyigelin noocee ayay tahay in loo wacyigeliyo bulshada sidee uga qayb qaadan lahayn bulshada rayidka doorashadan soo socota bulshada rayidka way muuqataa doorkii ku lahaayeen doorashada waa la gacan bidixiyay waa la iska riixay taana waxay ka muuqanaysaa shirarkii siyaasiyiintu ay lahaayeen xataa door korjoogteyn ah lama siinin bulshada rayidka ah waayo bulshada rayidka ah korjoogteyntoodu waxay yareyn kari lahayd saameynta xooggan ay siyaasiyiintu ku leeyihiin proseska taana ma rabaan siyaasiyiintu in cid aan ayaga ahayn ay noqoto cidda yiirinaysa sida proseska u shaqeynayo hadda oo arrintu ay marayso meel maaragtay sidii la filayay aan ahayn iyo rajooyinkii iyo filashooyinkii jadwaladii mataqaanaa dib looga dhacay bulshada rayidka ahi door waxay qaadan kartaa aad u yar oo kooban ma loogu talagelin baa inay door qaato siyaasiyiin door ma siinin laakiin waxay qaadan kartaa in wadankan bal iska quusan ay wacyigelin ayagoo fariimo ay sameeyaan ay biidih u marinayaan inay wada dhaqameedka ay saameeyaan si loo yareeyo musuqmaasuqa oo dabcan musuqmaasuqa la filanayo waa ka baaxad weyn yahay kii xilliyadii hore waa doorashadu xilligan waa aad uga sii adagta xilliyadii hore marka bal in la yareeyo heerka musuqmaasuqa ma dhihi karna hal dhameeyo waxaa leedahay hal la yareeyo yani levelka uu gaari karo in la yareeyo si taa ay u suurto geliso bal dadka inay u tartamaan tusaale arrinta aad sheegtay walaalkeen uu ka dhawaajiyey sidee loo damaanad qaadi karaa kootada dumarka soddonkii boqolkiiba 30 dumarku dad lacag badan haysta maaha markii loo fiiriyo kuwa kale lacagtana waxay noqon doontaa wax gacmaha la isdhaafsado xilliga doorashada aad u baahan tahay dadka delegateska ah wada dhaqameedka kaar musharaxiin dadka dhan waxa waaye doorashada waxay noqotaba yani business transaction noqotay wax oo qof kasta uu ka fiisho inuu wax ka helo marka wada dhaqameed waxay bulshada rayidka door ka ciyaari kartaa in arrintaas la yareeyo wacyigelin la sameeyo dadka mas'uul dareensiiyo in bal xaqa codaynta oo ayagu sida gaarka u haystaan dabcan hadda qof kasta cod bixiya maahan intaan yarta ah bal inay mas'uuliyad muujiyaan xilkas noqdaan codkooda u baxsadaan maaragtay si waafaqsan maaragtay hanaanka la dejiyey damiirkooda maaragtay ay bal eegaan marka taasaa isleeyahay doorka keliya u hartay waa kaas aada umahadsantaa waan soo gabagabeynaynaa waxaan midda muhiim waay jufo walba ee qabaa'ilka Soomaaliyeed ee kuraastooda suntantahay ka mid ah gabdhahooda waxgalka waa yaqaanaan waa inay hubsadaan in ay dawladda soo gashaa
waa midda labaad waa yaqaanaan dadka siyaasadda dib jirka ku ah ee doqonnimada la daba taagan ee wadankan aanan waxna ku kordhin karin asna aan wax isku kordhin karin waa kuwii ku andacoon jiray kursiga anaa soo gatay iyayna soo noqon kuwaas mas-uuliyadda ururada bulshada saaran waxa weeye ururada bulshada qabiil walba jufo walba ururo bulshay leedahay culumay leedahay haween bay leedahay dhalinyaray leedahay kuwaas baa la rabaa haddii ururadii bulshada ah ee habaysnaa kaalin ay siyaasiyiinta u diideen ururada bulshada ee dabiiciga ayaa la rabaa inay hubsadaan in ay soo saaraan qof haldoora oo waxgal u ah. Okay, aad u mahadsantahay. Marka su'aasha ugu dambaysan ku weydiinaya waa soo gabagabeynaya waxaan sheegnay Soomaaliya xildhibaan noocee ay u baahan tahay. Soomaaliya waxaan ka rabaa inaad ka jawaabto madaxweyne noocee ah ayay u baahan tahay. xildhibaankan ku hormaraya xildhibaanka waxaa la rabaa inuu noqdo nin maarayn kara ka qayb qaadan kara sidii dhibaatada weyn ee wadankan ku habsatay 30 sano la soo dhaafay wax ka maarayn kara ninaan aqoon lahayn ninaan ilbax ahayn nin jaahila wax kama galo waxa weeye hadda adiga xanuunsatid ma dhakhtar baa u tagaysaa mise makaanig dhakhtar baa u tagaysaa ninka siyaasiga ah wuxuu maareeyaa arrimaha bulshada haddii aad soo dirsato mid aanan maarayn karin dhibkeeday leedahay taa ka gudub waxaa ku haray madaxweynaha wadankani waa la yaqaanaa dastuurka ay ku qoran tahay 17 qodob oo shaqadiisa ah wax ka baxsan ma samayn karo 17 qodob madaxdii hore meeshii la gaartaba way ku yuururi jireen marka laga reebo ninka hadda xilkiisu dhamaaday ee wali soo taagan waxaa la rabaa marka ragga madaxtinimada u tartamaya xildhibaanada soo dooran doona inay ku qanciyaan nin walba intii yimaado khudbad jeedinaya moogta in ay ku qancaan inuu yahay ninkaasi nin u qalma in uu Soomaaliya isku wado qabyaaladda Soomaalida annaga wax uma qaybin ayaga wax u qaybsaday qabyaaladda iyo diinta Soomaalidu aad iyo aad ayay u qoto dheertahay cidii yaraysata ayada ku ceeboobaysa maxay tahay marka maxaa loo baahan yahay in dadkan la isku dumo oo si cadaalad loo waafajiyo 4.5 cadaalad ma ahayn xal buu ahaa laakiin aniga hadda qaabka soo socda haddii uu fashilmo waxaa ii muuqata in 4.5 ay meesha ka baxayso cabdiciis waxaan rabaa adoo soo gabagabeynaya haddii wax ka tagtana ku dari doono laakiin hal su'aal oo muhiim ah jirta haddii doorashadan ay iska socoto caqabadahan maanta aan ka hadlaynay dib u dhacaan iyo ay sii socdaan miiska midinku jira optionska ama waxyaabaha miiska idin saaran inay is casishaan oo iska tagtaan cabdiciis su'aal muhiim ah wasababta aan ku leeyahay doorasho kasto ama wadanka caqabad bay horseedaa ama xal bay horseedaa doorasho kasto jiisatana xalka ayaa laga fogaadaa handay xalalka ka mid tahay laga yaabaa in qaadan hadii waxaan jiitamaan laakiinse waxa ay muuqata inay doorashada dhici doonto bilaabatay aqalka sare hadda aan gabagabeynay kii hoosana wiigan aan bilaabayno taas anoo ka digahay waxaan rabaa inaan ku darsado su'aashaadin u soo laaban doono shacabka Soomaaliyeed waa inay dareemaan maanta inay tahay maalintii la xisaabtanka xilligoodii oo 4 sano cidii matalaysay ee la xisaabtami karaan la xisaabtankaasna wuxuu ka soo bilaabanayaa qofka ay soo magacaabayaan ama u soo dooranayaan inuu ku hogaamiyo golaha shacabka qabiilkaasi ama jifadaasi sidoo walaalkay sheegayba waxaan ku talin lahaa in ay ayagoo waaqica fiirinayo wadanka u marayo shakhsi bulsho kasta inay labeentooda soo xulaan cidii shaqo fiican qabato wax u dhiman yihiin ay soo celiyaan cidii qalalaaso iyo dhibaato wadanka u horseedana ay ka fiirsadaan ma dhahayo dhalinyaraha soo doorteeno laakiin qof waaqica wadankan caqabado badan baa ku heeraysan haday noqoto caqabado heer caalami ah iyo caqabado wadanka gudihiisa qof waaqica oo intaas ayada ah maskaxda ku hayo
fahansan maskaxdiisuna furan tahay inay bulshada u soo xulaan waxaan ku rajo weynayaa marka xildhibaan noocaasa markuu soo baxo in uu qiimeyn doono madaxda murashaxiinta ee xilka madaxweyne soo raadin doonto kuwii soo shaqeeyey iyo kuwa imaan doonaba ay ku qiimeeyaan shakhsigan wuxuu yahay iyo historically taariikhda wuxuu soo qabtay hadday wax fiican yihiin oo uu ka bixi karo wadankan caqabadaha haysta waxaa ka mid ah arrimo heer caalami ah oo crisis fara badan ah hadday tahay arrimaha argagixisada hadday tahay arrimaha mataqaanaa xuduudaha arrimaha dhaqaalaha arrimaha mataqaanaa bulshadu waxay u baahan tahay wax la yiraahdo social reconciliation and healing bay u baahan tahay qof bulshada isku hayo oo isku wado boogaha meesha jiraan fahmi karo dabcan oo wadankan wuxuu soo maray xaalado adag dagaal sukeeyo soo maray waxa laga yaabaa madaxweyne kastaba inuu la yimaado han kan hadda joogo iyo kuwa ka horeeyay oo inay wax qabtaan boqolkiiba boqol ah hankooda aad ayay u sareeyay laakiin xaaladda ay la kulmayaan ayaa mar kasto saameyn ku yeelata marka madaxweyne og meeshu wax ka bilaabi karo iyo meeshu ku weegi karo oo qorshihiisa ku socdo baan aniga ku talin lahaa waxaan rabaa marka hal qodob aan ku ku dheeraaday barnaamijka deyn cafinta IMF waxaa jirta benchmark laga shaqeynayo qolyahan IMF ta World Bank ee Soomaaliya oo lagu shaqeeyo inta markii la gaarsiin inta loo gudbo waxaan ku talin lahaa dawladda soo socota laftigeeda waxyaalaha hor yaala inay benchmark lahaadaan dastuurka maxaa laga qabanayaa inteeba u qorsheysan meeqa sano meeqa bilo amniga maxaa laga qabanaya xoreynta meeqa sano meeqa bari waxyaalahaasaan tala ahaan ra'yi ahaan baan kugu darsan lahaa waadna mahadsantihiin hal qodob oo muhiim waa fursaddii ugu dambeysay ee qabaa'il wax doortaan waxaa xusud mudan in la xusuusiyo kaaba qabiilada fursaddan hadday ku dhaafto oo aad nin fiican la imaan weydo fursaddan soo hay farxan soo gabagabay waxaa ku daraysa ma jiraan arrinta ugu muhiimsan oo horta arrintu waa dhinacyo fara badan tahay haddii aan maanta o dhan ka hadal ma dhammaanayso arrinta yaa Soomaaliya qof noocee ah marka laga hadlaayo dabcan waa hal xiraalo waaye qofkaas fiicanna biyada ku shaqeynaya mujtamaca markii la fiiriyo waan u jeednaa laakiin aniga waxaan is leeyahay dadku wax dooranaya in damiirkoodu shaqeeyo inaan doorno qof dhakhtar isbitaalista oo kale oo Soomaaliya cuduradeeda fahmi kara daawo saxan u qori kara waa dhakhtar aan danaysta ahayn waa dhakhtar aan xilka ka rabin inuu ganacsi inuu ka sameeyo ama quick reach inuu hadiyo mataqaan kan waxa noocaas kala dhakhtar hadafkiisu uu yahay kaliya in Soomaaliya oo marxaladan ka gudubta oo noqoto dawlad sumcad darrada adduunka haysata ka baxda oo taariikhdu magaciisa ku lamaanaysa inuu Soomaaliya ka bixiyay marxaladan mugdi ku jirta marxalad madaxweyne ama shakhsi track record fiican leh oo siiradiisa dambe markii la fiiriyo fiican nadiif ah madaxweyne wax qabtay oo wax qabad bulsho ama organization la yaqaano magac la ka shaqeeyay oo u noqon kara halbeeg hadduu xilka qabto muxuu noqon doonaa markaad fiirisid hoggaanka siyaasadda Soomaaliya ka qabtaahay dad aan lahayn kariya waayo wax badan kama shaqeynba shaqo badan soo ma qaban shaqada ugu koowaad ay qabtaan siyaasadda ahayd ama xildhibaan ka bilaabay ama position ama xafiis public office oo ka bilaabay uu weynay marka qof soo shaqeeyay khibrad leh aqoon leh vision leh markaan soo koobno specialist qof ah dhakhtar noocaas kale ah ayaan u baahanahay Soomaaliya ka bixi kara taasna waxay u baahan tahay nooca xildhibaanada imaan doona iyo ruuxooda sidii u dareemayaan dhibta shacabka uu qabo iyo laga maarmaannimada in wadankan meesha uu ku jiro iyo godka inta laga soo qaado meel fiican la keeno waa tahay daawadayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha waanu toddobaadkan uga hadalnay dib u dhaca iyo caqabadaha haysta doorashada waxaa barnaamijkan igala qayb qaatay toddobaadkan Mr. Farxaan Isxaaq Yuusuf oo ah ka socday Somali Public Agenda ahna agaasimo ku-xigeenka waxaa kaloo sidoo kale igala qayb qaatay Cabdicasiis Cabdiraxmaan Yuusuf oo xiriirka caalamiga u qaabilsan guddiga doorashada heer federaal waxaa kaloo sidoo kale barnaamijka qayb ka ahaa falanqeyntiisa falanqeeyo sare
maxamed maxamuud cadde. anigoo cabdicasiis gurbiye ah ayaa idinla socodsiinayay. tan iyo intaynu barnaamij kan oo kale ku kulmi doono idinma dhahayo nabadgelyo. waxaan idin leeyahay kulanti dambe oo xiiso leh.